dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadashay wararka sheegaya in ciidamo ka tirsan kuwa Soomaaliya oo tababar loo geeyay dalka Eritrea lagu dilay dagaal gobolka Tigray ka dhacay. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube ayaa sheegay in aysan jirin ciidan Soomaaliyeed oo dagaal waqooyiga dalka Itoobiya la geliyay. sidoo kale wasiir Dube waxa uu u muuqdaa inuu qirayo inay ciidan joogaan dalka Eritrea taas oo markeedii hore dowladda qudheeda ay beenin jirtay. ayaa sheegay in dadka wararka noocaas oo kale faafinaya ay ka soo horjeedaan oo ay diidan yihiin in Soomaaliya ay yeelato ciidan xooggan oo ammaankeeda ay ku filnaan karto. waxaa nasiib darro ah in ciidanka xoogga dalka laga dhex raadiyo siyaasad. sidaa darteed waxaan halkan dowlad ahaan ka caddaynaynaa wararka ku-tiri-kuteenta ah ee been abuurka ah ee mala awaalka ah ee laga dayayo siyaasadda iyo ganacsiga ee ah in ciidamo Soomaaliyeed oo tababar u jooga wadamada dibaddu ay ka dagaal galeen waqooyiga Itoobiya iyo Tigray inaanay wax ka jira haba yaraatee jirin. ma jirto ciidan Soomaaliyeed oo ay dowladda Itoobiya codsatay inay u dagaalamaan oo ay ka dagaalamaan Tigray. waxaan halkan ku caddaynayaa sidoo kale inaanay jirin ciidan Soomaaliyeed oo inoo jooga dalalka inoo tababaraya oo u diray goob kale oo dagaal. hore ayaa loo fidiyey dacaayado inay ciidan Soomaaliyeed ka dagaalameen Liibiya iyo Azerbaijan. sidii ay u beenoobeen ayay kuwan waqooyiga Itoobiya ee Tigrayna aan ugu caddaynaya shacabka inay yihiin been iyo malaawaal. waxaan rabaa inaan u mahad celino dowladaha saaxiibada ah ee walaalaha ah ee sida bilaa shuruud ah uga qayb qaata tababarka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. waxa ay ciidamada tababaranaya oo ah soo celinta karaamadii iyo sharafkii ciidamadu lahaayeen. dadka diidan ee dacaayadaha ku furayaana waxa ay diidan yihiin in Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay mar kale muujiso xuduudeeda ciidan iyo awoodda xoogga dalka Soomaaliyeed si ay u sugaan amniga. hadalka wasiir Dube ayaa jawaab u noqonaya warar in dhawaanahanba isa soo taraya iyo walaaca waalidiin badan oo ku saabsan in raq iyo ruuxba aan lagu heen wiilashoodii oo bilo ka hor dowladda Soomaaliya tababar ugu qaaday dalka Eritrea kuwaas oo warar soo baxay ay sheegeen in ay qayb ka qaateen dagaalka gobolka Tigray qaarkoodna ay halkaas ku dhinteen. Cabduqaadir Maxamed, warbaahintiisa Muqdisho.